kuwa inay isku ballaadhiyaan raba sida xoogana ku qabsadaan dhulka Soomaaliyeed ma dhici doonto darisnimada iyo wanaagu hana wala deeqo dhulka Soomaaliyeed xoog laguma qaadan karo sida la wala ogsoon yahayba waxaan xuduud la wadaagnaa ka dawlad deegaanaan saddex deegaanka Oromada oo ugu badan deegaanka Canfarta iyo Dirrabe saddexdaa waa dhaqdhaqaaq ba ka jira magaaladan dawlad deegaanka caasimadeeda Jigjiga ilaa ma iyo 26 kilomitir meel inoo jirta wad ka wareejin bana maleynaa dagaal baa ka socda marka arrimaha ayaa sababay in maxay ahayday shirkan jaraa'id xafiisku uu qabto cidii ay khusaysan la gaarsiiyo wixii ay ka qaban lahayna kulay tala bixin anaku tala bixin baan leenahay haddii aan u soo noqo maxay ahayday xafiiska hawshiisa kulay dawlad deegaanka Soomaalidu waxaa lagu qiyaasaa dhulkiisa 350,000 oo kilomitir square baa lagu qiyaasaa waa 12 gobol waa 9 degmo 6 maamul ismagaalood marka 6 gobol ayaan maxay ahayday la leenahay xuduudaha deegaanada dariska 23 degmo 174 qabale oo booketa ayaan leenahay dhulka qiyaastan la wadaagno maxay ahayd dawlad deegaanka Oromada iyo Canfarta iyo Dirrabe waxa lagu qiyaasaa 176 kilomitir square baa lagu qiyaasaa kulley 6 gobol ee maxay ahayd aan deegaan dariska aan lanahay deegaanada Oromada iyo Canfarta iyo Dirrabe hadaan ku horeyna gobolka Faafan Tuluguleed Shabeelley Gursum iyo Baabule ayaan la leenahay sidaad ka wala warhaysina dhulka kulli dhaqdhaqaaq ba ka jira dhaqdhaqaaq ay wadaan siyaasiyiin Oromo ah oo badheed dhulka Soomaaliyeed rabta inay maxay ahayd ku qaataan shacabka kulli shacabka maxay ahayd Oromada waa dad walaalanahay waa dad wanaagsan laakiin qolo siyaasiyiina oo ajenda kale maxay ahayd ka damacsan ayaa arrimo dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo colaadeeda ka wada maxay ahayd deegaanada qaarkood tusaale ahaan Tuluguleed hadaan qaadano mareer dagaal baa ka socda maalmahan dagaalka waxa ku dhintay dad aad u fara badan oo ku dhaawacmeen si sharci darro ah ayaa biyo xidheen in laga sameeyo la rabaa biyo xidheenka oo maxay ahayd la isku raacsanin dhammaan dawlad deegaanka Soomaalida handay tahay dawlad deegaanka maxay ahayd Oromada waxay rabtaa inay dhisto laakiin ka Soomaali ahaan shuruucdii iyo sharcigii lama marin hal laga daayo ayaa la leeyahay laakiin toodiiba ku adkaystaan inay dhisaan way rabaan marar markaan us maxay ahayd ku sii socdo maxay ahayd dad Soomaaliyeed baa degan labada dhinacba waxaan u aaminsanahay dad la bidixeeyay oo dhinaca kale marka la bidixeeyay kadib Oromada ka soo jeestay inay yihiin dad Soomaaliyeed baan labada qabiil ee halka maxay ahayd ku nool aan u aaminsanahay marar waa la wada degan yahay labada qabiil bay wada degan yihiin laakiin siyaasiyiinta Oromada ayaa ka damacsan dhul ballaarsi bay ka damacsan yihiin waxayna sameeyeen inay dagaal ku soo qaadaan ciidanka liyuga Oromada ayaa dagaal ku soo qaaday dhowrkan cisho ugu dambeysay marar iyo shacabka degan dad aad u fara badanna way laayeen dad aad u fara badanna way dhaawaceen dawlad deegaanka Soomaalida wali kama jawaabin waxay sugayaan ma garanayno waa loo sheegay shalay ugu dambeysay baan maxay ahayd u sheegnay baa inay hawsha ayada ka howlgalaan waxba kama qabanin marka taas waa taa gobolka maxay ahayd Liban kulley waa la socotiin Qarsaan Duula Dhikasufto Garabo Qusa iyo Gorodamo le ayaan la leenahay maxay ahayd xuduud Gorodamo le iyo area wad ka waraysin kulley maalmaha ugu dambeysay in maxay ahayd dagaal ay ka dhaceen faraa la isku la tagay oo shacabka Soomaaliyeed la rabay in lagu barakiciyo heshiiska halka lagu gaarina heshiis maxay ahayd dhameystiran maaha damacu marka inuu fara badan yahay inaan tuso ayaan halkaan rabaa gobolka Daawa markaan u imaano mooyaale Yahuudad ayaa xadla leh Oromada dagaalada ka dhaca iyo maxay ahayd isku dhaca meesha ka socda kulli waa maxay ahayd aad baad ula socotiin baan mareynaya gobolka Eeraan markaan imaano laga hidde Salax
salaxaad maya muluqo iyo qubbi ayaa maxay ahayd darisan la nahay oromada dagaaladu kulay iyo maxay ahayd isku dayga dhul ballaarsiga siyaasiyiinta oromadu way caddahay waxaan leenahay laga noqdo laakiin taa ma noqonayso inkastoo gabagabadan maxay ahayd waxaan doono gobolka afdheer markaan nimano iimeey galbeed raaso jarati iyo elkarre waxaan la leenahay maxay ahayd oromada ayaan la leenahay xad elkarri shalay iyo maanta ugu dambaysa dagaal ba ka socda dhul ballaarsiga iyo sii socdaan gobolka maxay ahayd city markaan nimano erar gootabiki abdam mulli deymeed iyo dan la helay iyo maxay ahayd dunyar ayaan la leenahay gobolka maxay ahayd canfarta sida la wada ogsoon yahay ba isbeddelkii kadib dagaal waxba la isku la hadhin ee deegaanka canfarta ku soo qaatay gobolka city magaalooyinkii Garbaciise Cadeytu iyo Cundufaba oo dad Soomaaliyeed boqolkii barsantiba ay deganaayeen xoog baa lagu qaatay waxaana xoog ku qaatay ciidanka canfarta iyo jabhadooda oo wala socda dawladda federaalka oo jooga ciidanka militariga oo jooga ayaa dadka lagu maaday dad aad iyo aad u fara badan baa Garbaciise lagu gumaaday ilaa ma ay imikana hal qof oo loo qabtay ma jirto dawladda federaalkuna way joogeen markii dibta dadka loo geysanay kaba daran gobolka si tandaan ku sii socono labadii degmo ee ugu dambeysay ee dawladda deegaanka Soomaalidu dadkii la soo barakiciyay ay u ansixiyeen ee deymeed iyo dunyar ahayd dunyar waa la haystaa iyo jabhadooda ayaa qabsaday way qabsadeen wayna haystaa dunyar dawladda deegaanka Soomaaliduna ilaa ma ay kamayna jawaabin hawsha iyada wax gurmada iyo wax kale loo diray midtoona ma jirto taasi waa dhibaatooyinka maxay ahayd ay soo gaadhay shacabka xuduudaha ku nool ee Soomaaliyeed fariinta gaaban ee rabo halkan inaan maxay ahayd ay ka tabiyo waxay tahay xafiisku wuxuu taagan yahay xaqiijinta nabadeynta xuquuqda asaasiga iyo ku dhaqanka dimuqraadiyadda sidii loo gaarsiin lahaa dadka Soomaaliyeed ee xuduudaha ku nool sidaa daraadeed waxaan ugu baaqaynaa guud ahaan dawladda aqoonyahanka qaybaha kala duwan ee shacabka Soomaaliyeed inay aragti midaysan ka qaataan ilaalinta xuduudaha iyo badbaadinta shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan xuduudaha lana kulmaya dagaalada isdaba jooga iyo duulaanka kaga imanaya deegaanada dariska ee oromada iyo canfarta iyo dirraba iyaduna aad iyo aad isku balaadhinaysa gobolka city iyo magaaladii dirraba iyada la rabo qudhadeeda in gacanta Soomaaliya laga wareejiyo gacan kalena la geliyo xaqiiqada marka la sheegana magaalada dirraba waxay ahayd magaalo Soomaaliyeed bay ahayd oo Soomaali baa asaastay arrimaha maxay ahayd adag ee cakaran in maxay ahayd la soo wajahay ummadda Soomaaliyeed waxa laga bixi karaa midnimo iyo wadajir ba laga bixi karaa waxaana laga hortagi karaa damaca shisheeyaha iyadoo loo midoobo dhammaan oo dhan baq waxaan xagga ugu daraynaa aan uga dirayaa kuwa inay isku ballaadhiyaan raba sida xoogana ku qabsadaan dhulka Soomaaliyeed ma dhici doonto darisnimada iyo wanaagu hana wala deeqo dhulka Soomaaliyeed xoog lagu ma qaadan karo